السلام عليكم kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Dr. Mahdi waa dhakhtar u dhashay dalka Ciraaq waxa uuna ahaa mid ka mid ah dhaqaatiirta ugu caansan wadamada Carabta. Dhakhtarkan waxa uu fulin jiray qaliinka noocyadiisa kala duwan. Waxa uuna soo jiitay indhaha malaayiin qof oo ku kala nool daafaha wadamada Carabta. Ninkan waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah dadka nolosha ka soo hooyay guulo wax ku ool ah, isaga oo ku guuleystay bilad sharafyo, hadiyado maamuus iyo abaalmarino kale oo badan. Waxa uu ahaa dhakhtar inta badan waqtigiisa u hora bukaanada iyo bulshada uu u adeegayo. Har iyo habeen waxa uu taagnaa la tacaalidda iyo muhiimasiinta bukaanada la ildaran xanuunada kala duwan. Balse maxaa noloshiisii sidan u bedelay? Qof sigaarka caba oo wadooyinka seexda oo aanan lahayn hooy iyo meel loogu hagaago. Ka hor intaanan u guda galin sheekada ninkan, waxaan ka codsanayaa in aad kanalka subscribe gareyso, sidoo kale in aad muuqaalka like saarto muhiim ayay inoo tahay. Mahadsanid. Dr. Mahdi sanadka marka uu ahaa 1995 waxa uu hooyadiisii oo xanuunsaneed isku dayay in uu u sameeyo qaliin, balse inta uu ku guda jiray qaliinka ayay hooyadiisii geeriyootay, waliba isaga oo gacmaha kula jira. aad ayuu u murugooday, xaaladiisiina waxa ay isku bedeshay murugo iyo walwal joogto ah oo ugu dambeyn u horseeday in uu miirkiisa ku waayo. Waxa uu ku hadlaa 5 luqadood oo aanan ahayn Carabi. waxa uuna hanti ahaan u haystay gaari iyo guri uu isagu lahaa. Kadib burburkii dowladda Ciraaq, xoogagii Mareykanka ahaa ee gudaha u galay dalkan ayaa la kulmay ninkan oo darbiyada ku qoraya hooyo waan ku jeclahay. ciidankii Mareykanka ahaa aad ay ula yaabeen ninkan, waxa ayna isweydiiyeen sidee buu nin waalani uu ku qori karaa hooyo waan ku jeclahay. waxa ayna weydiiyeen dadka deegaanka ninkan qisadiisa iyo isbedelkiisa. kadibna waxa ay isku dayeen in ay daweeyaan, balse wuu ka diiday oo iminka waa nin caba sigaarka oo meeshuu doono wadada ka seexda, guryaha dadkana ku qora hooyo waan ku jeclahay ee iska kee cafi. haddaba daawade, hooyadaada oo xanuunsan ma ku dhiiran lahayd in aad qaliin u sameyso? Fikirkaaga qaybta hoose inoogu reeb. Mahadsanid.